أحمد نور فارح حسين وأهويل somali oo ku nool dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Hamburg ayaa dilay aabihii kadib markii uu khilaaf xooggan soo kala dhex galay isaga aabihii Axmed oo 17 jir ah ayaa toori ama midi ku dilay aabihii Nuur Faarax Xuseen oo guriga uu kula noolaa madaxa booliiska magaalada uu dilku ka dhacay ayaa sheegay in wali wadaan baaritaan ku aadan sida ay arrintan u dhacday balse ma ay bixin laamaha ammaanku wax war oo dheeraad ah oo la xiriira dhacdadani Nuur Faarax Xuseen oo aabaha la dilay ayay dadiisu ahayd 17 jir sanadadan u dambeeyay waxa kor u sii kacay dilalka ka dhex dhaca dadka Soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka balse dhacdadan ayaa noqotay mid ka cusub guud ahaan taariikhda Soomaalida ku dhaqan wadamada reer galbeedka markaana waxay noqotay dhacdo naxdin badan ku abuurtay dad badan oo Soomaaliya Ismaaciil Cabdi Xasan Ismaaciil Hugur Sab TV ma ogtahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxa kamid ah Afrika, Asia, qaybo kamid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in la kadib kubaad frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dhiishka kubaad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida